kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale barnaamijkeena falaqaynta wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda qodobada maanta wararkeena ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanka Soomaalida ee dalkaas Ethiopia iyo waliba wararkii ugu dambeeyay jucaalihii halkaas ka soo baxaya iyadoo khasaaraha iyo waliba tafaasiil aan idinka hayno iyo sida wax u dhaceen dawladda Ethiopia arrinta markii ugu horeysay ka hadashay sidoo kale banaanbaxyo waaweyn looga soo horjeedo dawladda dalkaas Israa'iil ayaa ka soconaya magaalada Tel Aviv ee xarunta u ah Yuhuudda madaxweyne Trump iyo waliba waxa isku cuna duuman ayaguna ciyaartooyda dalkaas ugu caansan oo kamid yahay ciyaaryahanka dhinaca kubadda gacanta ciyaare ee basketballka loo yaqaan Mr. LeBron James sidoo kale daawadayaal waxaad ku maqli doontaa dawladda dalka Turkiga waxay ku dhawaaqday iyaduna inay talaabooyin dhinaca cunaqabataynta ay saartay laba wasaaradood ama laba wasiir oo ka tirsan dalkaasi Mareykanka iyadoo kaga argoosanaysa jawaabna ka u ah hadalkii iyo go'aankii hore cunaqabataynta ay ugu saareen laba wasiir oo ka tirsan dawladda dalkaasi Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan dabcan waa maalinimo Axada waa 5tii bishii Agoosto ama bishii 8aad 2018 kolkaliya barnaamijkeena falaqaynta dunida warbixinaha caafimaadka aan ku bilaabo isla markaana aan ugu horeysay madaxweynaha dalkaasi Venezuela Mr. Maduro ayaa wuxuu ka badbaaday weerar la sheegay inuu ahaa mid argagax dawladda dalkaasi ayaa sheegtay in madaxweynaha oo ka qayb qaadanayay bandhig ciidamada ay ku sameeyeen magaalada xarunta u ah Caracas ee dalkaasi Venezuela uu ka badbaaday jug weyn oo meesha ka dhacday oo u ekeed baa la qarax la doonayay in lagu waxyeeleeyo madaxweyne Nicolas Maduro oo aad isku hayaan dalka Mareykanka magaalada Caracas ayaa mas'uuliyiinta halkaas ku sugan waxay sheegayaan in madaxweynuhu caafimaad qabo isla markaana aysan waxba gaarin isagoo markaas ka waramayay xarunta ciidamada qalabka sida ee loogu dabaaldegayay 81 guuradii ka soo wareegtay kolkii ciidamada la yiraahdo Peruvian National Guard la asaasay wararku waxay intaas ku darayaan in madaxweynaha uu arintu ay ahayd ama ay daarneed isku day la doonayay in lagu qaarajiyo ama looga taqaluso taasna waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanahan oo dhan dawladda dalkaasi Mareykanka ay cadaadis xooggan saaraysay saraakiil militariga ka tirsan oo ay doonaysay in ay markaasi tallaabo ka qaataan madaxweynaha arinta ayaa waxay u muuqatay markaasi weerar iska cad waxaana la arkay iyada oo hal mar isagoo madaxweynaha oo toos u qodbeynaya ayaa waxa la arkay iyadoo hal mar ay booday xaaska madaxweynaha oo markaasi qabsatay mid kamid ah saraakiishii meesha taagneed hase yeeshee waxa uu madaxweynuhu ahaa mid isagu aan fariirin balse waxa muuqatay in ciidamadii uu khudbada u jeedinayay ee dowladtuska meesha ka waday iyaguna ay kala yaaceen warinta ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta amniga qaranka ee dalkaasi oo iyaguna sheegay in ujeedku ama uu ahaa ujeedada ugu weyn ay ahayd in madaxweynaha meesha lagu dilo balse uu ka badbaaday TV-ga qaranka ee dalkaasi ayaa waxa la hadlay mid kamid ah madaxda dalkaasi oo kamid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ama aqalka sare ee dalkaasi baarlamaanka Diosdado Cabello Mr. Cabello ayaa ugu baaqay dhacdada inay ahayd mid markaasi argagixiso oo la doonayay buu yiri kooxo wax qarbuda oo militariga dhexdiisa aan ahayn buuri balse u shaqeeyay mucaaradka cadawga ah in ay dalka ku burburiyaan dawladdu waxay sidoo kale sheegay madaxa dhinaca markaasi warfaafinta u qaabilsan dalkaasi Venezuela ayaa wuxuu la hadlay wakaaladda wararka loo yaqaan Telesur ee dalkaasi Venezuela wuxuuna u sheegay madaxweyne Maduro asagoo ku hadlaya afkiisa uu yahay mid caafimaad qaba markaana hoygiisa ku sugan yahay wuxuuna qaranka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal la iskaga celinayo kuwa u adeegaya dalka shisheeye dalkaasi ayaa cunaqabatayn waxa saaray dalka Mareykanka tan iyo intii madaxweynaha dalkaasi Maduro uu diiday inuu cilaaqaad hagaagsan la suubisto dalalka Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka oo dhan wuxuuna saaxiib dhow ka dhigtay dalalka Ruushka Turkiga iyo dalkaasi Shiinaha halka kala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinada dhinaca diblomaasiyadda dalka Waqooyiga Koreana wuxuu ku dhawaaqay in dawladda dalkaasi Mareykanku ay sameynayso laba online ku saabsan inay bari furto dhammaan dadaalada nabadeed ee la doonayay in lagu soo afjaro hubka nuclear-ka sida daran wax u gumaada ee doonaysay Waqooyiga Korea inay ka jawaabto wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Waqooyiga Korea oo ka daba hadlay shirka uu ka hadlay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo ka soconaya dalkaasi Singapore ayaa waniga ayaa wuxuu sheegay in Waqooyiga Korea ay ka daashay ballanfurka Mareykanka isla markaana cadaadiska Mareykanka uu ku dhawaaqay gaar ahaan xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo ku celiyay inay tahay in Waqooyiga Korea lagu dhoojiyo cunaqabataynta isla markaana la saaro cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca dhaqaalaha uu ka turjumayo laba wajiilanimada iyo in aysan meesha ka muuqan bay yiraahdeen niyad wanaaga ay la timid Pyongyang Washington ayay ku eedeeyeen in ay bari furayso dhammaan dadaalada hubka nuclear-ka xalka loogu helayo wuxuuna ka digay in Waqooyiga Korea isdhiibi doono
doonin sidoo kale wuxuu sheegay in labada hogaamiye kulankoodii bishii June 12keedii ka dhacay Singapore uu noqonayo mid halbacaad lagu lisayo haddii Mareykanka uu sii wado cadaadiska iyo loolanka uu ku doonayo inuu dalka waqooyiga Kuuriya ku gadoomiyo isla markaana ugu sii hayo cunaqabataynta halakaysay nolosha guud ee dadka reer waqooyiga Kuuriya daawadayaasha qiimaha leh halkaan nagala socotaan warfadhi media haatan Turkiga dalka Turkiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay in madaxweynahooda Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay shirka golaha baarlamaanka xisbigiisa gaar ahaan haweenka laga soo doorto xisbiga AK Party waa ururka la yiraahdo Justice and Development Party la yiraahdo AK Party ayaa wuxuu sheegay in ay dawladdiisu go'aansatay inay cunaqabatayn la mid ah tan la saaray labada wasiiro ee kala wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda ee dalkaasi Turkiga mid la mid ah la saaro dhigagooda dalkaasi Mareykanka Mr. Erdogan ayaa wuxuu yiri waxaan soo rognay isla markaana aan doonaynaa inaan ku dhawaaqno in labada wasiir iyo hantidooda Turkiga taala ay xaniman yihiin isla markaana cunaqabatayn saaran tahay waa hadii ay jirtay wuxuu intaas ku daray madaxweynuhu in ay ilaa iyo tan iyo shalay habeennimadeedii ay iscilcilinayeen isla markaana ay suubinayeen ayuu yiri dulqaad saaxiibtinimo balse wuxuu sheegay in Mareykanku uu go'aansaday inuu cadaawad qaato sida daraadeedna wuxuu yiri hadii hantida wasiiradayada Suleyman Sono iyo Cabdilxamiid Gul la xanibay kooduna way xaniban yihiin hadda laga bilaabo wuxuu sheegay in dadka Mareykanku hadii uu moodayo buuri wuxuu yiri kuwa ku fikiraya buuri in dawladda in Turkigu buuri ama dadka Turkidu ay marka loo hanjamo ama loo cagajugleeyo ay dib u fadhiisanayaan waa kuwa aan aqoon buuri qaranka Turkiga isla markaana aan xog fiican ka haysan taariikhdanada xogayaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isaguna dhankiisa wuxuu sheegay in hadallada Mareykanka ka soo duulaya ay yihiin kuwa aan la aqbali karin isagoo ka soo baxay telefoon uu kula yeeshay xagga khadka telefoonka ama wadahadal khadka telefoonka kula yeeshay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu wuxuu sheegay in ay sidoo kale ku kulmeen shalay magaalada Singapore isla markaana ay maalinimadii maanta wada hadleen balse aysan wada hadloodu ilaa hadda xog soo naasacadaan dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ku celiska iyo wada hadallada socda ee xooggan ee u dhaxeeya labada dal ay ka tarjumi karaan in labada dal ee cilaaqaadkoodu u yahay maguuraan wuxuuna sheegay in ishaynta muuqata ee labada dal Mareykanku uu mar walba qabooji doono Mr. Pompeo wuxuu sheegay in labada dal ay yihiin xulufo dhab ah hase yeeshee Mevlut Cavusoglu wuxuu ka digay in Turkiga aan laga fulin inay u sujuudaan Mareykanka iyo waliba dalalka kale balse laga filo wada hadal iyo waliba ixtiraam siman oo labada dal ay ku wada hadlaan ama ku wada xaajoodaan dalka Israel waxa isugu soo baxay kumanaan qof magaalada xarunta waa Tel Aviv halkaas oo ay dadku uga soo horjeedaan go'aankii dhawaan baarlamaanka Knesset la yiraahdo ee Israel ee Yuhuuddu ay ku ansaxsadeen in dalka iyo dhulkaas oo dhan ay leeyihiin dadka Yuhuudda haysta ama aqoonta Yuhuudda ama diinta Yuhuudda aaminsan kumanaan kun oo dad oo Tel Aviv isugu soo baxay sabtidii shalay ayaa waxa ay soo bandhigeen sida ay u diidan yihiin go'aanka Israel ay soo saartay xukuumadeeda gaar ahaan baarlamaanku dadkan ayaa waxay isugu jiraan dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta iyo Kirishtaanka iyo sidoo kale dad Yuhuud ah oo iyagu diidan waxa ay ugu yeereen talaabooyinka cunsuriyadda ah ee baarlamaanku qaadayaan iyo waliba talaabooyinka dadka lagu khasbayo in xuquuqdooda lagu tirtiro gaar ahaan kuwa muslimiinta kuwa Kirishtaanka ah ee ku nool dalkaas isla markaana haysta dhalashada dhaqdhaqaaqan ayaa loogu yeeray markaasi waxa loogu yeeray sinaanta dhammaan dadka oo kala ku dhaga markaasi banaanbaxayaashu ay siteen waxayna isugu soo baxeen waxay banaanbaxooda waxa mid nabadeed ayadoo lagu qiyaasay dadka ka soo qayb galay inay gaarayaan ugu yaraan 80,000 oo ruux dadku waxay ka digayeen in dawladda dalkaasi ay tahay inay ka noqoto go'aamada noocaas oo kale ah dadka arinta sida weyn u diiday ayaa waxa kamid ah madaxweynaha isaga laga awood badan yahay ee dalkaasi Israel Rufin Rivlin oo sheegay in aysan taasi u hiilinaynin ama aysan waxba taraynin halganka Israel ay ku in ay amnigeeda ku socoto dadka muslimiinta ah ee Carbeed ee iyagu dhulkooda lagu dul habsaday ee reer Falastiin ayaa ka ah 20% dadka dalkaasi Israel sidoo kalena waxa hoos loo dhigay doorkii luqadda Carabiga ay ku lahayd dalka kolka ay timaado inay kamid ahayd luqadaha qaranka ee dalkaasi Israel arimahan oo dhan ayaa waxay sii murjiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed u dhaxeeyay dalka Turkiga iyo dalkaasi Israel dalka Turkiga kaliya ayaa noqday dalka kaliya ee ka tirsan caalamka Islaamka ee arintaasi cambaareeya waxaana madaxweynaha
madaxweynaha dalkaasi Turkiga uu eray bixintii ugu cusleed uu isticmaalay xukuumadda Tel Aviv oo ugu yeeray inay tahay dalka adduunka ugu xun uguna cunsurisan taasoo cirka ku shareertay xiriirkoodii awalba labada dal ee madmadowga xoogan uu ka jiray taas ay Israa'iil ay ka jawaabaysaa ayaa waxay bilowday howlgal ay kaga hortagayso dadka reer Turki ee ka soo qayb gala ama soo dega magaalada barakaysan ee Qudus ayadoo dad badan halkaas ka celisay wararku waxay sheegayaan in ay taas ay ku tirtirsiyeen sirdoon ka tirsan dalalka Carabta oo ayagu haba yaraatee aan wax ficil celina ka geysan arinta Israa'iil ay ku dhawaaqday inay leedahay dhulkaas isla markaana ay yuhuudeysay gabi ahaanba daawadayaal wararkii iyo warbixinii dhinaca dunaasiyadda ayaan wali kala socotaan horfadhi media haatana Saudi Arabia dalka Saudi Arabia ayaa wakaalada wararka dalkaasi gordhaweyta waxay ku dhawaaqday in wasiirka tabarta ee dalkaasi Khalid Al-Falah uu sheegay in dib loo furay isla markaana dib loo bilaabay howlihii gudbinta shidaalka ee marinka Bab al-Mandab ee isku xidha badda cas iyo waliba gacanka cadmeed warka qoraalka uu soo saaray oo la soo mariyay wakaalada wararka ee loo yaqaan Saudi News Agency ama ISBA ayaa wuxuu sheegay Mr. Falah in gabi ahaanba dawladdu ay qaaday cunaqabatayntii iyo waliba wuxuu yiri dib u dhigistii dib loo dhigayay markaas in maraakiibtu halkaas ay maraan warka qoraalka wuxuu intaas ku daray in xanibaada loo joojay kadib markii bishii July 26keedii ay weerar la kulmeen qaar ka mid ah maraakiibta saliidda ceeriin sida ee deegaanka marayay halkaas Bab al-Mandab oo ah asagu marin ka kooban 20 kilomitir oo kali ah ayaa haddana wuxuu muhiim u yahay ugu yaraan 18 markab 18,000 oo markab oo maalin walba halkaas ka gudba kuwaas oo ah kuwa markaas uu isaga kala goosha caalamka oo dhan gaar ahaan isku xidha Asia Europe gaar ahaan marinada caalamiga ah ee badda cas iyo gacanka cadmeed wasaaradda waxay intaas ku dartay in go'aanka lagu sii deynayo baa leeyahay maraakiibta isla markaana ay taas kala xajootay qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ugu baaqay in saliidda cirkaas ku sii shareertay awgeed ay tahay in la dedejiyo arintaasi kooxda xuutiyiinta ayaa horey ugu garaacday gantaalo maraakiib saliid ceerin sida umre oo Turkiga oo ay leedahay Saudi Arabia taasna waxay runtii walwal gelisay baahida dhinaca shidaalka dunida iyadoo qiimaha shidaalku uu cirkiis ku shareeray judhiba dhanka kalena waxaa muuqata in kooxda xuutiyiintu ay dadaal xoogan ugu jiraan in ay burburiyaan baa la leeyahay dhammaan hantida ay leeyihiin dalalka Sacuudiga iyo isku taga Imaaraadka Carabta dhawaan kooxda xuutiyiintu waxay sheegtay inay ku weerartay diyaarado drone ah oo sida gantaalka kale loo suubiyay magaalada xarunta u ah dalkaas isku taga Imaaraadka Carabta Abu Dhabi gaar ahaan garoonka caalamiga waxayna wacd ku mareen in aysan fadhiisan doonin ilaa iyo inta ay jilbaha dhulka ugu dhufanayaan dhaqaalaha dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia sidoo kale waxay ku guul dareysatay olole ay doonaysay in dunida oo dhan ay ku qaado kooxda xuutiyiinta oo looga sifeeyo ama looga eriyo deegaankaasi hase yeeshee waxay moog yihiin in dalalka caalamku aysan haba yaraatay waxabateeda u hayn inay dagaal la galaan kooxaha ay ka mid yihiin xuutiyiinta iyo Xisbullah oo kale kuwaas oo inta badan dalalka reer galbeedku ay u arkaan inaysan ayaga khatar weyn ku haynin isla markaana ay culayska iyo waliba kan siyaasadeed iyo kan amniga ay saaraan dalalka Carbeed hase yeeshee dalalka Carbeed baan arintaas wali fahmin oo dabcan aysan ka dhaadhicin in siyaasadda caalamka isku jabinta caalamka islaamka ay tahay mid ka dhigan dalalka reer galbeedka istiraatiijiyad fiican oo ay gaareen daawadayaal qaybta dambe wararkii warbixinaha dhinaca dunaasiyadda ha moogaanin